dhamaantiin saaxiib aad baan salaamay ka war hadaa ku dhaw surface ama product aad adigu lahayn hadaa bil kasta lacag ka sameynaysid waxa la affiliate marketing waa mid kamid ah xirfadaha ugu fudud oo internetka sanadkan 2015 lacag looga sameyn karo dabcan saaxiib aad iga barateen computerka aadiya indhaha kugu tusay lacagta anigu taqshiin aan ka sameeyay jil case study baan marba ku tusaya wax saxda aniga aan sameeyay baa kula wadaagay si aad u aaminto waxaan wax run ay waa maxay affiliate marketing saaxiib waxa weeye waxaad haysinaysaa product ama service shirkad ama qof kale leeyahay markastoo linkaaga unique laga gatana adiga حيلسا كوميشن طبعا waxay la tahay links ba ku aragtay description-ka YouTube-ka ama waxa blogyada dadka social media ku jira wali ma booqato qof waxa weeye description-kiisa tusaale kale aniga YouTube-ka description waa kana waxaan arkaysa kulli waa link qaar kamid ah waxa weeye saxbe waa affiliate marketing oo marka saxbe linkada la galiyo ama la iska diiwaan galiyo ama order ama service laga dalbado aniga commission baa helaya lacagta waxa ay siinayna ma ahan qofka wax gatay shirkadda aan waxa ay siinay productigeeda baa lacagta ay siinayso saxbe affiliate marketing meel kala duwan lagu sameyn karaa dad qayb waxa ku sameeyeen Amazon dad qayb waxa ku sameeyeen Clickbank dad qayb waxa ku sameeyeen Shopify dad qayb waxa ku sameeyeen software-rada caadiga sida mataqaana domain profile risk hosting-ka codadka Namecheap kala weeyleen dad baxta waxa ku sameeyaan video editing software-ka ayagana waxa leeyihiin service loo yaqaano affiliate marketing aniga waxa kamid ah saaxiibayaal dadka runtii bil kasta lacag waxtan affiliate marketing waxa rabaa computerka aado ina ku shaqo qayb kamid ah affiliate marketing oo lacag fiican ka sameeyo indhaha ugu marka aad umrada iyo xajka aadayso waa suurtagal inaad ilowdo kaarkaaga bangiga laakiin waxa suurtagal ahayn inaad ka tagto mobilkaaga oo uu kugu jiro Wafi Digital Mastercard ku dukaamayso ku jira tigidhada ku isticmaal ATM-yada ku bixi biilka hotelkaaga Wafi Mastercard saaxiibka safarka iyo dalxiiska halkan saaxiibayaal waa Binance-ga weeye waxaan ku sameeyaa affiliate by the way linkiga horta aan ku tuso intaan muuqaalka u gudbin marka YouTube-ka video aad soo furtid video kasta YouTube-ka hada dhahday more waxa meesha ku jira waa links weeye kan waa school-kan academy-da weeye kan WhatsApp-keena weeye isaga waxa affiliate ma ahan shirkadda web design-ka alla yahay website-kada weeye waa kan register Binance smart waxaan waa affiliate link weeye waa kan wada lacagta aan ka sameeyo kaliya Binance affiliate kuma sameeyo sidoo kale waxaan ku jira credit.com waa ku sameeyaa dhowr kale exchange ku sameeyaa marka qof kasto linkigaas ku dhufto halka Binance iska duwan gali lacag ka sameeyo marka waxaan galiya hadda Binance-ga weeye hadda meesha hadaan ku dhufto waa 2024 October baan ka soo bilaabaya si aan ku lacag ka sameeyo October waxaan ka sameeyay saaxiibayaal $480 baa ka sameeyay waa lacag fiican weeye kriptaan xiliyada mataqaana bull rank baa lacag badan laga sameeyay affiliate-kiisa runtii aad u jeclaa haddii aan ku dhufto fiir November 2024 sanadka soo dhaafay waxa ka sameeyay $3,165 dareemi kartaa marka waa lacag aad u tiro badan weeye hal month hadda inta ka sameysay marka 62 qof linkiga iska diiwaan galisay 32 is verify gareysay 75 waxa weeye trade ka dhacay dadkaas 75 trade bisha sameeyay 75 trade ama qofka waa buy weeye muhiimadu waa buy weeye baa waxa weeye wax iibsaday weeye commissionkaas isiiyeen Binance by the way waa lacag aad u tiro badan weeye waa lacag fiican marka taas anigu u jecelahay kaliya ma aha mataqaan November hadaan December ku dhuftan waxa ka sameeyay $323 weeye waa passive income weeye lacagtan saaxiibayaal shaqa qabaris Manchester linkiga meesha idin sheegay ku jiro ay dadku iska diiwaan gelinayaan marka lacag fiican weeye referral-ka aan bishaas dadka linkiga iska diiwaan geliyay waa 72 qof verify-gana waa intaas dadka trade galayeen waa 83 marka 83 trade oo dadkaas ay buy dhaheen bay waxay ugu siiyeen $1,323 waxyaalaha aan ku jeclaa waxa weeye Binance lacagtu waa recurring money weeye bil kasta lacag buu ku siinayaa haddii aan sanadka hadda January aan ka bilaabo January wuxuu siiyay $430 buu siiyay marka waa dareemi kartaa runtii bishaasna lacag fiican buu siiyay marka saaxiib bil kasta qaabkaas lacag siiyay kaliya Binance kuma sameeyay sida qof kasta wuxuu jecel yahay ku sameyn kara dad baa waxa ku sameeyaan Amazon adiga marka niche-ka aad ku jirtid baa ku sameynaysaa ma fahantay niche-ka aad ku jirtid already inaad ku sameysay weeye hadda Amazon oo kale Amazon Associate baa dhahaa waa kana halkaan iska diiwaan gelinaysaa Amazon.com weeye kan haddii aad Mareykan joogto.com baa qaadanaysaa dadka Mareykan ama Mareykan xitaa qasab ma hadda aniga Mareykan waxa iga daawado hadda Amazon alaab haysiinay portable kale .com-ka baa linkooda ka iibsanaya haddii ay Belgium dadka Europe.p oo kale dadka Netherlands.nl adiga way badan yihiin xataa Deutschland ku jirto oo ah .de marka mid kasta kiisa waad ku sameyn kartaa Amazon kaliya waxa ku sameyn karaa waxa loo yaqaan Shopify oo kale Shopify affiliate program baa lahaa waa kana asna dadka haddii aad Shopify aad uga hadasho kale iyo dropship kale waxa ku sameyn karaa ayaga wali mataqaana bil kasta lacag fiican bay bixiyaan sidoo kale waxa ku sameyn karaa waxa loo yaqaan Clickbank mid dhahan baa runtii oo ama taqaana kuwa ugu caansan inkastoo kalima affiliate-kiisa waa in alaabta laga iibsado marka xaysiiska aad sameeynayo samco kuwan kale ku duwan laakiin Binance aan hadda ku jiro wax xaysiis saxba dhigan baana linkiga halkaas ku jira aad waxta crypto lacag ba ka sameeya linkigaas qof kasta halkan iska diiwaan geliyo mataqaana Binance lacag ka sameeya marka saxba waa very simple way sidoo kale waxa ku sameyn kartaa Namecheap oo kale uu leeyahay Namecheap oo kale waa leeyahay host providers-ka
affiliate بيلي almost شركة كستوعان هذا affiliate program بيلي سمعت نينجا affiliate dadka website-yada iyo waxa ka shaqeeya hadii aad tahay waa muhiim weeye waa soo dhigaysa adiga marka waxa ka hadlaysid baa mo focus ka saaraysa waa inaad niche leedahay niche-kaas dadka xogsan because dadka ku daawanaya niche-kaas u badan yihiin dadka anada crypto online business u badan yihiin soo marka taas ay saabsan inaan ka sameeyo soo kale saaxiibyaal Udemy waa iskale Skillshare baa iskale marka saaxiibyaal waa aragtay ma leen qaabka affiliate marketing lacag laga sameeyo runtii aad buu fududahay passive income fiican dad maalin aad u soo weydiinayay si gaar ah oo affiliate marketing qaabkaas aan ugu sameeyaa waa qaab fudud weeye marka hore waxaad doonaysaa niche-kaaga product ama service-ka linkiga affiliate programka baa iska diiwaangelinaysaa linkiga soo qaadanaysaa platform-yada baa dhigaysaa adana waxa way markasto sale ama order ama qofka registration sameeyo lacag baa most waxa lacag ku bixiyaan marka order dhaca weeye ama qof sale uu sameeyo wanaagsan sale oo ka dhaco unique linkaaga markaas marka lacag ka sameeyay ina faahfaahin sax bal u malaniya aad baa in salaam maasantii